siyaasi Qadar Kaariye oo ka mid ah siyaasiyiinta ku dhaqan gobolka Togdheer oo si gaar ah ula hadlay telefishinka caalamiga ee Horyaal ayaa waxa uu siyaasigu ka hadlay shirka beelaha galbeedka iyo bariga magaalada Burco ee la filayo inuu dhawaan ka dhaco magaalada Burco. Shirkaasi oo noqday mid hadal hayn weeyay isla markaana xukuumaduna ay ku tilmaamtay mid qaran dumisa. Siyaasiga ayaa sheegay inay siyaasiyiin xisbiga kulmiye ka tirsan ay abaabulayaan odayaal dhaqameed ay sheegeen in ay taageersan yihiin shirkaasi inuu dhaco, isagoona ka digay in la qabto shirkaasi oo uu sheegay in ay waqtigani haboon tahay in marka hore la dhameeyo xaaladda ka taagan ceelaf weyn kadibna la qabto shirkaasi. Waxaana ka mid ah hadaladiisii sida tan kuna dhowr wajib leeyahay markii hore boqor Cismaan Aw Maxamuud buur madow ayaa ku dhawaaqay iyadoo nuxnuxowsi jirtay markii dambena xukuumadda soo firgeliso Musabbix laftiisa ayaa ku dhawaaqay oo soo dhaweeyay marka xukuumaddu soo firgelisay waxay bilowday inay shakhsiyaad madax dhaqameed ay ku soo shubto kadibna ay baahiyaan marka reeraha qaar lagu burburiyo reerahan Burco wada digay leeyahay shireyna waxa ka dhaxeeya xaq iyo xanaan badan waana dad Ilaahay isbaday xaalad kasta iyo wax kasta oo la soo dirsaana way u siman yihiin marka shirka xukuumaddu dibadda ka riixayso ataag wax laga dhigay reerkan laga yiraahdo garxajisamaha Brionis inkastoo aan ahayn in la kala qaado oo garxajisintu shiray la isku raacay gudi reerkaas uu ka helay shakhsiyaad oo marka caloosha ka kiraysto oo madax dhaqameedyo wax badan isku jira shakhsiyaadkaasi weyn ogeeno umadii tashuush bay galiyeen reeri walaalahaana uu suwaasi tashuush bay kala dhaxdigeen sidii la rabayna sawirku waxaad moodaa inay u dhacayo oo reerkii uu iska horimi laakiin ilaa hadda markaan xaqiiqda idin siiyo waxa weeye waa dadkii gacanta kale ku jirtay dadkan hadlaya kuwii shalay Burco ka hadlay wala wada garinayo waxa weeye waa xisbigii kulmiye iyo xukuumadda wax wada socday haaya marka ayaan dari waxa weeye ama ceeb waxa weeye in caloosha laga kireysto waana nasiib daraad weyn ummaddu in la dhiso oo la habeeyo la nidaamiyo ahayd laakiin ma aha in la burburiyo oo raadadka maamul xumida ka Qadar ahaan haddii la doonayo sidan imika la isugu xuquuqinayo habra jeceliyaha Brionis waa dad walaalo ah way shiri karaan way tashan karaan way isku iman karaan laakiin waqtigeeda iyo goorteeda iyo arrinkeeda u baahan tahay. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Horyaal TV, Burco.